wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena qubanaha maanta oo qodobada aan idinkugu hayno ay kamid yihiin boqolaal askari oo Tigray ah oo ka tirsanaa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNESCO oo diiday inay dalkooda dib ugu laabtaan cabsi ay ka qabaan dawladda awgeed diyaaradii ugu horeysay ee rakaab ah oo muddo ku siman 6 sano kadib dib uga soo caga dhigi lahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca oo la hakiyay 8 qof oo ku dhimatay dab ka kacay warshad saliida ceeriin sifeyso oo ku taala dalka Nigeria qodobadaasi kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha maanta duulimaadkii ugu horeeyay ee ganacsi oo muddo 6 sano ku siman kadib ka degi lahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca ee dalkaasi Yemen ayaa caga dhigan weysay halkaasi kadib markii ay ogolaansho inay ka hesho isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyay ee halkaasi dagaalka ka wada lagu guuldareystay diyaaradan oo ahayd mid ay leedahay shirkadda qaran ee Yemeniya ayaa lagu waday in ay ka duusho magaalada Cadan ee ay maamusho dawladda kuna sii hakato magaalada Sanca kadibna ay bukaano u baahan gargaar caafimaad ay u sii qaado magaalada Amman ee dalka Urdun dawladda Yemen ayaa kooxda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta waxay ku eedeysay dib u dhacan iyadoo oo sheegtay in kooxdu ay isku dayeyso in ay ku soo dhex qariso diyaaradaasi xubno ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan iyo mintidiinta ka tirsan kooxda Xisbullah ee Lebanon halka maamulka magaalada Sanca ay ku tilmaameen tallaabadaasi mid ka dhana xabad joojintii la gaaray garoonkan diyaaradaha ee caasimada dalkaasi ayaa axadda maanta la filayay inuu qaabilo diyaarad rakaab ah taasi oo yididiilo u noqon lahayd in dalkaasi dagaaladu ay halakeeyeen uu soo celiyo howlgalladoodii caadiga ahaa ee diyaaradaha dagaalka qaraar ee muddada 7 sano ah ka socda dalkaasi ay isaga soo horjeedaan dawladda Yemen ee Sacuudiga uu taageeray iyo kooxda Shiicada ee Xuutiyiinta ayaa waxaa ku dhintay boqolaal kun oo qof iyadoo dalkaasina uu galiyay xaalad macaluul oo aad khatar u ah in ka badan 500 oo askari oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee xuduudda Suudaanta Koonfureed iyo Suudaan ayaa waxa ay diideen inay dalkooda dib ugu noqdaan cabsi ay ka qabaan dawladda awgeed waxayna magangeliyo siyaasadeed ay weydiisteen dawladda Suudaan afayeen u hadlay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa isaga oo ku sugan magaalada New York u sheegay wakaaladda wararka AFP in badan oo kamid ah ciidamadaasi nabad ilaalinta kana socda Ethiopia ay ku laabteen dalkooda laakiinse ay jiraan kuwa badan oo ayaguna magangeliyo doona afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in askartaasi ay doorteen inay dalkooda ku laabantaa bedelkeedana ay raadinayaan inay helaan badqab wuxuuna intaasi raaciyay in qaramada midoobay ee amnigooda sugayso goob ammaanana ay joogaan ilaa sanadkii hore ciidamada ka socda Ethiopia ayaa tirada ugu badan ee ahaa 40,000 ee askari ee qaybta ka ahaa howlgalka nabad ilaalinta ee UNESCO ee gobolka Abiya halkaasi oo ay ku muransan yihiin dalalka Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed ciidamada Ethiopia ayaa lagu bedelayaa ciidamo ka socda dalal kala gedisan kadib markii xiriirka Addis Ababa iyo Khartoum uu xumaaday iyaga oo ay ka dhex taagan tahay muranka dhuleed iyo sidoo kale tan biyaha xireenka weyn ee Ethiopia ee dhistay ee Suudaan ay ka cabsi qabto inuu qatar geliyo biyaha ay ka hesho webiga Niil sida AFP ay ka soo xigatay Major General Gabriel Kidane oo ah sarkaal ka tirsan gobolka Tigray ka soo jeeda Ethiopian ah qaybna ka ahaa howlgalkaasi nabad ilaalinta tirada ciidamada Ethiopia ee ka soo jeeda gobolka Tigray ayaa waxay gaaraysaa 528 askari waxaana sidoo kale tiradaasi xaqiijiyay 2 sarkaal oo ayaguna la hadlay wakaaladda wararka AFP sida ay sheegtay waaxda gargaarka degdega ah ku dhawaad 80 qof ayaa ku dhimatay kadib markii qarax uu ka dhashay warshad sifeysa saliida ceeriin oo ku taala koonfurta dalka Nigeria booliska ayaa xaqiijiyay in qaraxan uu ka dhacay warshad si sharci darro u sifeysa saliida oo ku taala inta u dhaxaysa labada gobol ee saliida qaniga ku ah ee Rivers iyo Imo waxa aan joognaa goobta laga helay ugu yaraan 80 meed oo si xun u gubtay wakaaladda wararka AFP ayaa waxaa sidaas u sheegay Afayeenye Naji oo ka tirsan hay'adda qaran ee gurmadka degdega ah ee dalkaasi asagoo intaasi raaciyay in tirada dadka dhintay ay kordhi karto sida ay ku warameen warbaahinta gudaha in ka badan 100 qof ayaa waxaa la sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen habka sifeynta saliida ee sida sharci darrada ah ayaa si dadban uga socota gobolka koonfureed ee dalkaasi ee shidaalka soo saara halkaasi oo burcadu ay burburiyeen dhuumaha shidaalka ayna ka xadaan saliida ceeriin oo ah goobaha sida sharci darrada ah ku safeeya dhawaana waxa ay u iibgeynayeen waayadii ugu dambeysay habka suuqa madow ee lagu kala gato saliidaasi
ugu yaraan 6 qof oo ku jirto gabar yar ayaa waxa ay ku dhinteen doontii ay la socdeen markii ay degtay. waxaa la sheegay sidoo kale in 50 qof laga soo badbaadiyay doontaasi oo ku degtay xeebaha Lebanon. dadka halkaasi ka soo hadlaya ayaa waxa ay sheegeen in doontaasi ay degtay kadib markii ciidamada ilaalada xeebaha Lebanon ay ciirsadeen. doontan oo sida ilaa 60 qof ayaa habeennimadii Sabtidii ku degtay meel ku dhow dekada magaalada Tripoli, halkaasi oo ah goob ay ka baxaan tirada sii kordhaysay muhaajiriinta isku dayaysa inay ka gudbaan biyaha badda. dhacdadan ayaa waxa ku dhintay dadkaasi waxayna ku soo aadaysaa toddobaadyo ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi oo la filayo inay qabsoonto bartamaha bisha May ee soo socoto. waxaysan ahayn sidoo kale tii ugu horeysay ee ka dhacda halkaasi, gaar ahaan dalkaasi xasaradaha adag iyo dhibaatooyinka ay ka jiraan. laakiinse waxay calaamad u tahay dhibaatada sii kordhaysa ee heysata dad badan oo ay ku jiraan muwaadiniinta Lubnaaniyiinta ah iyo qaxootiga Siiriyaanka ah, kuwaas oo naftooda khatar u gelinaya inay nolol wanaagsan ka helaan dalalka horumaray. boqolaal dad oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne ee dalka Australia oo isugu yimid afur wadareed ayaa dhaqaale dhan $100,000 oo ay ugu deeqeen suuqa Waaheen ee dhawaantan gubtay ee magaalada Hargeysa halkaasi isaga aruuriyay. wariyaha VOA-da ee dalkaasi Australia Ibrahim Cumar Bafo ayaa warkan ka soo diray halkaasi. kulankan ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaalida Melbourne ku dhaqan ayaa ahaa mid dhaqaale loogu aruurinayay suuqii Waaheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay kuna hanti beeshay boqolaal qof oo halkaasi ku ganacsanaysay. camalka inoo fadhina habeen Ramadaan 23 Ramadaan. culimada ayaa ku dheeraatay faa'iidooyinka sadaqadu ay leedahay, waxaana markii dambe la soo jeediyay in ilaa iyo $100,000 caawa halkan lagu aruuriyo. Sheekh Maxamed Cali Good ayaa dadka marba tiro lacag ah ka codsanayay inay yaboohaan. ayaa caawa 5,000 inoo bilaabaya oo inta kale ka daba marto oo dhan ajarkooda in leeg buu qofkaasi helaya. dadkuna waxay ahaayeen kuwa aad uga qayb qaadanaya tabarucaasi. ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahay ha ku barakeeyo. wariyaa ku xigo 5,000 qaadanaya. ujeedku wuxuu ahaa suuqii Waaheen ee dhibaatada weyn ay ka dhacday adduunka oo dhan laga wada ogaaday in la garab istaago lala damqado. ilaahay fadligiisa sidii aanu ka filaynay, sidii Soomaalida lagu yaqaanay, deeqsinimadooda iyo dadnimadooda iyo damiirkooda fiican, gacan aad iyo aad u weyn ayaa caawa maxaan ku dhahdaa isgarabtaagii suuqa Waaheen ay noo gaadhay. lacagtii culimadu ay sheegtay in caawa halkan lagu aruuriyo ayaa aad loogu dhawaaday, sida uu sharxayo Sheekh Jimcaale oo ka mid ah guddida tabaruca suuqa Waaheen. maanta waan iskugu nimid magaalada Melbourne, Australia, oo aan u hiilinaynay Waaheen dabkii ka dhacay magaalada Hargeysa. aanu fundraising sameynay, lacag ururinaynay. alxamdulillah community-ga Soomaalida ee reer Melbourne maanta waxay ururiyeen lacag ka badan 83,000. ما شاء الله $83,000 oo Australian ayaan ururinay. alxamdulillah ilaahay baa mahadle. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u calfa lacagtaasi dadkii baahida u qabay ee businesskoodu kaga baaba'ay magaalada Hargeysa. dhalinyaro badan ayaa ka soo qayb gashay, qaarkood ayaa dareenkooda cabiraya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. magacaygu waa Cabdilqaadir Cumar Cali, waxaanu degannahay Melbourne, Australia baan degannahay. maanta waxaa la sameynaya fundraising baa la sameynaya oo loo sameynayay suuqii Waaheen ee Hargeysa. Soomaalo dhan baa u gurmatay oo isku timid maasha Allah. magaalada dacal ilaa dacal baa laga yimid oo qof walba intuu awooday buu bixiyay maasha Allah. waanu ducaynaa dadka sadaqada badan bixiyay. runtii maasha Allah waxaanu haynaa dhalinyartii reer Melbourne ee volunteer garanaysa lacagta si loo ururiyo. runtii wallahi waxba lama hadhin, dhammaan community-ga way wada maaragtay way exceed gareeyeen expectationskii. waxaan maanta isugu nimay arrintan khayriga ah ee lagu gurmanayay suuqii Waaheen. waxaa ilaahay mahadii waxay ku tusaysaa sida dadka Soomaalidu meel kastoo ay joogaan walaalo u yihiin. halkan isuguma iman Somaliland oo qudhe dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla oo xilliyada adag isu gurmada, dad walaalo ah iska rab istaaga. tan iyo intii mushkilada suuqa weyn ee Waaheen ay dhacday, Soomaalidu meel walba adduunka ay ka joogaan waxay ahaayeen kuwa isgarab istaagay ganacsatadii ku hanti beeshay suuqaasi. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. guud ahaan intaas waxaan ku joojinaynaa barnaamijkeena qubanaha maanta. intaanu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.